بسم الله السلام عليكم marka la ku soo dhawaada cashirkii labaad aan isla maanta qaadanayno guud ahaan laakiin waa cashirkii toddobaad taxanaheeni HTML course HTML ee la xiriirta barashada dhisidda ama samaynta website-yada maanta qodobada aan ku qaadanayno waxay noqon doonaan cashirkan insha Allah taala okay website-ka waa toos uga qaadanaynaa formatting data aan qaadanay soo hadda waxaan qaadanay quotations HTML quotation and citation elements wuxuu ku saabsan waxa la yiraahdaa yani waxyaabaha la xiriira hadallada meelaha laga soo xiganayo yani hebel wuxuu yiri ama urur hebel wuxuu yiri ama dowlad hebel waxay tiri waxyaabaha la xiriira xigashada qof hebel ama qolo hebel waxay ka soo xigatay qoladaas ayaa loo isticmaalaa marka quotation and citation. So in this chapter aan weynayo waxyaraan u soo dhaweeyay mouse-ka. Okay. In this chapter we will go through the block quote Q abbreviation BPR abbreviation laga soo gaabiyay address site and BDO HTML elements waxaan ku qaadan doonaa qodobadan oo sida inta hadda aan sheegnay ku celis macna dheeraad ma sameynayso tusaale ahaan waa hadda kan here is a quote from WWF's website qoladan oo WWF's la yiraahdo WWF website kooda ayaa waxa laga soo xigtay qoraalkan marka balan isla fiirino sidoo ku soo gudbinayo waa kaasa marka yani hadda marka dhinacan bidix dhinacan waa koodkii sida loo gala loo sameeyay dhinacan waa dhinacii oo display browserka uu soo muujinayo waa dadka arkayeen marka warbixinta laga soo xigtay qoladan WWF website kooda waa tara marka warbixinta gudaheeda iyo akhrinteeda muhiim noo sii ahan waxa muhiim noo ah qodobka mowduuca inaan fahamno kulay إذا نفترض كذا وأنا آخرين كرنا حويد معهن for 50 years WW has been protecting the future of nature قرارك اللي قصة حكته قلنا سيوحي يحسدان قنطن سنة مدة WW حي معركتي إلى لنيسي دبع مستقبل كدبع عدة so هو حين هذا world's leading conservation organization و يعني أوركا هو جامينا إلى لنت عالمك why So WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. waxaana ay hay-adan ay ka howlgashaa ama ka shaqeysaa 100 wadan sidoo kalena waxaa taageera 1.2 milyan xubnood kaliya in America iyo in ku dhow 5 milyan caalamka oo dhan so marka muhiim sida marka qolo warka loogu soo xigto sida loo qoraayo waa marka inta mowduuca muhiimadiisa so waxaana la isticmaalaa marka waa kana HTML block quote waxaa la isticmaalaa marka elementigan block quote kala yiraahdo for quotations xigashooyinka loo isticmaalaa HTML block quote element defines a section that's quoted from another source يعني wuxuu qeexaa elementigan block quote-ka qayb yani laga soo xigtay other source yani il kalento dhinaca kalento il kala laga soo xigtay ila kala laga soo xigtay marka la leeyahay kalento waa marka browsers usually indent block quote element marka kana dhaxgeliyaan inta badan browserada marka kana dhaxgeliyaan elementigan block quote kala dhaho so waxaan isticmaalaynaa hadda editorka website-ka uu leeyahay online-ka ah so waa kana marka documentiga caadiga markii oo page ku qoratay sida loo qori jira caadiga ah uu qoran yahay so marka inta nuxurka ah mowduuca waa kana marka fiiri bidan paragraph-kan just wuxuu noo sheegayaa oo kaliya mowduuca browsers usually indent block quote element laakiin waa kan marka sida loo qoray fiir waxa la qoraa maxaa la furay less than block quote ki site
kadib oo kana wixii maaragtay website meeshii warka laga soo xigtaa la gelinaa marka la geliyo waa intaas marka waxa la xiraa elementiga la xiraa ama tagi kadib qoraalkii meeshaan la gelinaa marka for nearly 60 years the has been protecting the future of nature marka adi waa ka balabala marka ugu dambeysay la soo xiraayna waa kaas sida un baa loogu soo xiraa tag ending waa kana waa intaas so easy muhiimadda waxay tahay inaad gelisid tagga aad ku bilowdid start tagga end tagna aad gelisid aad dhaxdoodana aad ku qortid macluumaadkii kan ugu horeyna tagga opening taggana waxaad gelinaysaa waa kaas adi site-kii wixii meesha laga soo xigtay iyo qoladii waxaan rajaynayaa inay waadix tahay san cusleen sabab aan hadda aan guna ugu qorno ma jirayso so inta marka hadda HTML Q for short quotation tag aan yiraahdo ama elementiga aan yiraahdo Q asigana marka waxa loo isticmaalaa ama qeexaa short quotations xigashooyinka gaagaaban ee yaryar browsers normally insert quotations marks around the quotation marka waxay geliyaan browserada maaragtay sida caadiyan waxay geliyaan quotation markska around the quotation يعني warka la soo xigtay waxay dhex geliyaan quotation يعني waa arki doona calaamadda quotation ka soo meesha marka hadaan isticmaalna aan aragno okay browsers usually insert marka hadalkii la way kan oo soo noqonayo paragraphka ku jiro oo tagan oo ama elementigan paragraphka hadalkii un baa ku jiro laakiin hadalka la soo xiganaya marka arkeena fiiriya waa kana paragraphkan www's goal is to q-ga marka la dhaxgeliyay q-ga marka open tag kiisa kale xirnaashaha close taggiisa waa kana inta ku dhex jirto waa inta leh waa kana marka quotation ka calaamadan so marka I hope inaysan u sii baahnayn soo dhaweyn kaleento dheeraada laakiin waan sameeyay so marka waa kana intan waa calaamada quotation ka intana waa tan ku soo xirmatay waan inta dhaxda kaga jirto taggan waa intaas so www goalkeeda hadafkeedu wuxuu yahay inay dhisto mustaqbal qoraalka marka wax badan lagama gelin marka build a future where people live in harmony with nature yani inay dhisto mustaqbal ay dadka ay ku noolaan karaan la falgelid dabeecadda si waafaqsan dabeecadda marka so marka muhiim ma ahan English fasiraadiisa laakiin nuxurka kiyadaas waay meesha ma aragtay dadka diinta barana waxay dhigi jireen maxal shaahid fiqiga iyo xil xiriiro so maxal shaahidka ulajeedka meesha oo targetka target pointiga waa elementiga waxa waaye this element ama this tag waa marka key tag waa kan open tag waa close tag waa kana inta u dhaxaysa marka waxa waaye waa intaan from build to nature ariga build ka bilaama wuxuu ku egaa nature ku egahay so asigana markaan ka gudubno pages kana iska xiraa okay ku kastaan isticmaalno iska xiraa dib malahan soo igu sii daarnaanin okay kan hadda kii haduu dambeeyaan isticmaalno waay iska xiraa asigana okay HTML_Q marka aan imaana marka HTML_Q short for quotation kii hadaan isticmaalina waa kan okay ka sii socono waa processkii hadda waa kan oo qaadanay waxaan u imaanayna marka elementiga mataaga la yiraahdo abbreviations HTML abbreviations ABPR for abbreviations waxyaaba la soo gaabiyay so HTML abbreviation tag defines wuxuu sheegaa qeexa an abbreviation or an acronym iyo abbreviation isleeyihiin sida HTML CSS master editor ASAP ATM ama ASAP iyo ATM so marka waa waxyaalo la soo gaabiyay marka kuwaas loo isticmaalaa so making abbreviations can give you useful information to browsers in marka waxyaabaha la soo gaabiyo
waxay siin kartaa macluumaad can give waxay siin kartaa useful informations macluumaad waxtar leh to browsers marka browserada ay siin kartaa marka macluumaad waxtar u leh browserada ayay calaamadeyn karaan marka marking abbreviations markaad marking ku samaysid marking abbreviations marka waxay tahay arki doonaa sidoo kale inta browserada kaliya maahane translation systems iyo nidaamyada wax lagu tarjumo nidaamyada wax tarjumaan iyo search engines iyo ayagana maaragtay makiinada wax raadinta ah so wuxuu yaro arki doonaa laga wado use the global title attribute to show the description for the abbreviation acronym when you mouse over the element yani markaad element mouse-ka kor saartid ayaa waxaa la rabaa in uu title abbreviation-ka title-ka attribute in la isticmaalo title attribute-ka loo isticmaalaa waa arki doonaa ereygan gaar ahaan wixii laga wado haddaan ku dhufanaa sugo so habka loo qorayo waa kanaas paragraafkii dhexda la geliya asigoo dhan aan arkeenaa sugo okay kusoo dhawaada waa kana paragraafkan wuxuu ku leeyahay paragraafka ku dhex jira fiir marka the abbreviation marka ABPR title aad qoray marka World Health Organization WHO World Health Organization ururka caafimaadka adduunka so marka waad qeexda soo kala dhigan iyadoo abbreviation ka ana waa kana WHO ama WHO abbreviation ki waad xiraysaa kadib was founded in 1948 xilligaas aasa waaye 1948 ka so muhiimadeeda marka waxay tahay fiiri title-kii la geliyay so hadda waxaan sameynaa WHO gan waxaan kor saaraa mouse-ka iyadoo complete soo baxayso waa kaasa inaad arki kartiin aan rajeyna marka maaragtaan W meesha hadda mouse-kan saarayo way ku soo qormata hoos World Health Organization so waa kaasa marka aad u soo dhaweeyo mouse-ka markaan kor saaro title-ki marka uu soo saaraa waxay tahay waxa laga soo gaabiyo xuruuftaas so marka waxaana arintaas fududeeyay title-kii ku jiro oo World Health Organization soo faahfaahsan waa kaasa si guudna abbreviation waa yahay oo waa ka WHO so taagiina soo xirna waa kana so systemkaas u baad raacisaa nuxurka 10 waa intaas muhiimadiisa so marka kan hadalkii waa marka marking abbreviations can give you useful information yani in la calaamadeeyo waxyaabaha la soo gaagaabinayo waxay siin karaan warbixino waxtar u leh siin karaan browserada nidaamyada tarjumida iyo search engineska hadalkii la ku celisay intaas tahay ku celiska badana wax ma taro qofka rabo inuu ku celisto waa muuqaalku dib u dhigeysanaa oo kaliya laakiin aanay isla hadalku ku celceliyo wax macna ma sameynayso laakiin sida loo fahmi lahaa kaliya inaan different ways aan ku keeno ama ku tusaale ayaa muhiim ah okay tusaalahan waa kii hadda aan qaadanay aan ka sii soconno waxaa kale jira asigana HTML address for contact information taggan la yiraahdo ama elementigan la yiraahdo HTML address waxaa loo isticmaalaa macluumaadka xiriirinta la isku xiriiro warbixinada habka la isku xiriiro qofka macluumaadka qofka kula xiriir leed emailka website-ki telefoonki BO postadii wixii wax la mid ah so the HTML address tag defines the contact information for the owner of a document or an article yani HTML address tagga wuxuu qeexaa macluumaadka lagula xiriiro qofka yani qoraaga ama iska leh documentiga ama or an article ama maqaalada qofku wixii qoro iska leh so macluumaadka laga xiriir lahaa meesha emailkii wax la mid ah ama telephone or website meesha qofka laga heli lahaa contact information so the contact information can be an email waa kana wixii aan sheegay waxay noqon karaan email URL website-ka waay physical address wuxuu noqon karaa physical address yani guriga caadi postadii iyo street name-kii iyo house number-ka iyo wixii la mid ah ayuu noqon karaa phone number sidoo kale social media handle iyo etc wixii la mid ah so the text in the address qoraalka ku jira taggan addresska address elementiga usually renders in italic marka waxaa lagu soo bandhigaa qaabka maaragtay italic formatting
يعني italic formatting text qoraal ahaan farta waxa waa sida italic waa jifta qoraal farta jifta waa so and the browsers will always add a line break browseradana markasta waxay ku dari doonaan line break yani line break waxa waa soo qaadanaa sigara in saf cusub ay ka bilaabaan before and after the address element ka hor iyo kadib address elementiga so wax kasto hadal aan dhahno ficilka markii la gaaro waadax ay ku noqon doonaan bal meeshan aan ku aragno so habkan loo qoraa waa kana tagi oo furan tagi oo xiran so open tag close tag dhaxda marka maxaa ku jiro written by John Doe ayaa qoray br break waaye laga soo gaabiyo abbreviation tagan waan soo qaadanay casharadeenii hore ku soo qaadanay so hadana sadarkii labaad waxa ka bilaabay visit us at laga soo booqo meesha hadana waa la kala jibiyay example.com website-kii oo kaleento waa URL-ka physical address waa kala PO Box 5 okay bal ana si toos ah u taagna bal maxaan ku editor-ka online editor-ka waa kana marka just wixii hadda aan sheegay marka waa kuwana qoraalkii oo code-ka ku wada qoran waa dhankan ani dhinacayga markaan fiirinayo waa bidix kulli adii markaa dhow shaashada daawan doonto waxaan malena inay dhinaca midig noqon doonto dhankaana bidix ku noqon doonto laga yaabaa si kastaba ani markaa dhankan code-ka bidix iga xigtaa dhankaana midig waa dhankii oo browser-ka dadka ay ka fiirsanayeen so shaashada dadka muuqanaysa waa marka address-ka waa kuwan marka intaan hoos ku qorano marka contact information author ama owner of a document or article marka documenti ama maqaal qofka iska lahaa ama qoray macluumaadka laga xiriir lahaa marka written by John Doe visit us at example.com PO Box 564 Disneyland USA so tusaale intaas ku filan ka socono okay wasaan sii dago waxaan noo haray site for work title HTML tagan ama elementigan waxa sida loo isticmaalaa work title yani cinwaanka shaqada yani ranjile mechanic farsamayaqaan tubiste alhamiste work title-ka so the HTML site tag defines the title of a creative work yani hal abuuraha shaqada title-kiisa ayaa lagu sheegaa hal abuurida shaqo sida maaragtay book qofka iska lahaa poem gabay song hees film sawir iyo maaragtay sculpture farshaxan iyo sidoo kale etc wixii la mid ah so sigaar marka uu go person's name is not the title of a work yani qofka magaciisa ma ahan a title of work ma ahan qofka يعني هادو رنجيلي هاي رنجيلي مقعيس معهن just waa work title waa taas qofka laakiin magaciisa magac kale inta noqon waay هادو tubista yahay tubista magaci maahan waa work title waay laakiin qofka magaciisa maahan qofka waa Ali tubisti iyo Ahmed tubisti iyo Jamaa tubisti iyo wixii la dhahaa so marka the text in the site element usually renders in italic marka qoraalka oo site-ka ku jirana waxa lagu soo bandhigaa sidan italic so with example things come easier and more clear so tusaalaha waxa kala cadaadaan kuna fudaadaan aan imaana marka meeshan okay code-ku waa kana paragraph-ki waa kana paragraph-kan hadda iska hadalki hadda aan dhihin waaye laakiin muhiimadda waa kana kan waaye marka img kan oo hadda sawir aan inta la soo geliyay waan soo qaadanay kan image-ka casharadeenna horaan ku soo qaadanay sida sawirka loo soo geliyo source-gii sawirkii dhag sawir meeshan ku jiro sawirkan meeshan aan ka aragno waayay waxa hadda aan rabno inaan aragno xir aan gadaal u turjiyo si loo arko wax dhan okay so tagan elementigan from here to here waxa waaye space daaran u dhaxaysiin kara dhib malahan kan waxa waaye kii sawirka lagu soo geliyo waay laakiin casharkan hadda aan ku jirno waxa qosay kan ugu dambeeyo waa marka paragraph kan ugu dambeeyo so paragraph-ka la furay b aan soo dhaweeyo
marka paragraphka la furay b maxaa la qoray the screen waa okay site la furay site tag laga dhex furay the screen lagu qoray screen waa qayli sawirka qayliya ka muuqda ninkan dhigaha haysto soo ma aragtiin so ninkan dhigaha haysto oo qaylinayo so sawirka marka qofka iska leh waa marka site-ka la xiray site-ka marka waxaan soo sheegnay in qoraalka oo ku dhex jiro browsers usually display site elements in italic so marka italic qoraalka farta jiifta waay marka so farka qaabkan ku soo bandhigaan waana arkuna waa kana the steam from the steam labadan eray the steam qaylida so marka qofkan sawirka magaca qaylo waxa loogu qoray yani markan image-ka cashirka aan qaadan jirnay waxaan soo sheegnay alternative in uu ku jiro oo la gelinaya alt from alternative si haddii uu sawirka shaqayn waayo uu qofka u ogaado wax meesha kuma sawiran waxa ay yihiin so wax meesha kuma sawiran marka maxaa waaye the screen oo bixi magaca sawirka waa qof qaylinaya waa meesha ku jiro tusaalahan hadda sawirka inuusan shaqaynin ayaan ka shaqaynaa haddaan sawirka uusan shaqaynin waxaa soo baxaya fartana inta kasoo baxayso tantii faa'iideynaysa waa cashirkan hadda ma quseeyo cashirkeena laakiin cashirkan hadda waxaa quseeyo qodobkan waaye oona ah the screen meeshan ku jirto so marka maxaa ku jiro by Edvard Munch marka Edvard Munch waa ninka iska leh ee sawirka so painted in 1893 ayaa la sawiray ama la ranjiyay ama la daaway sawirkan la sameeyay so marka qoraalkan la qoraayo oo sidan la subinayo xuquuqdii qofkii lahaa la isticmaalayo oo la sheegayo ayaa la adeegsadaa site tag ama element ka socdo marka cashirkeenu waa okay final oo ahaa destination that was our final destination marka qofkii rabo exercise iyo su'aalaha inuu ka jawaabo wixii uu soo arko kaleento uu inta ma aragtay ka sii ogaado meeshaan oo ka sii wadan kara marka quotation marks ku dar letters cool so marka waa kaasa marka qofka rabo inuu su'aalaha ka jawaabo website-ka isaga mashquulo editor-kiisa ha furto page-kiisa wixiisa ku sameeyo aad baan idin salaamayaa cashirka 20 daqiiqo inuu la sii dhaafo ma rabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh